subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka raadiyaha wadaaga muqdisho haya waxaa ka mid ah wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay sababtii loo xayray hubkii in laga galo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho hogaamiyaha xisbigooda jira oo ka hadlay xayiraadii dowladda Soomaaliya ay ka soo saartay in hubka laga galo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kulamo gooni oo ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka goboleedka Puntland midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo go'aan ka soo saaray go'aankii ka soo baxay dowladda Soomaaliya dad ku dhintay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Boqol madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland oo shir ka furay magaalada Garowe wararka dibaddana waxaa ka mid noqon doona Suudaan iyo Masar oo heshiis saxday xilli ay isku hayaan qadiyadda dalka Ethiopia wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag FM subaxsiin 4 bisha koobaad sanadka 2021 warkaasi oo dhan saaka waxayna soo wariyeenaa Faaduma Abuukar Cabdi aad iyo aad mahadsantahay Nuuruddin Xasan Ibraahim wasiirka amniga ayaa waxa uu faahfaahin ka baxshay sababta loo xayiray hubka in la galo gudaha garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan inoogu sii faahfaahinay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amaro soo saartay oo ah in garoonka diyaaradaha aan la geli karin hubkana ay la geli karaan kaliya mas'uuliyiin kooban sida madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble iyo labada guddoon sababta amaradan loo soo saaray ayaa wax laga weydiiyay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey arrintaas horta ariboorka adduunka waa ogtiin ariboor hub lala galo oo dhashiikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha marar badan cabasho nooga timid maamulku inuu leeyahay amniga hubka la soo gelayo khatar baa ka jirta dad baa kala shakin kara baa isku dhici kara mararka qaar ciidamada meesha soo gelaya waa isma yaqaanaan waxa waaye khatartaas cabashadooda nagu soo noqnoqotay bari dhaweedna waxaa dhacday in kala shaki dhaca laftiisa oo dhibaato abuuri lahay laakiin ma dhicin nasiib wanaag cabashadii nagu soo noqnoqonaysay iyo ariboorkoon u baahana inuu nabad noqdo waxaan la tashanay madaxda markii la tashaday guud ahaan waxaa loo arkay in ariboorka aan hub lala gelin dhanka kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube ayaa wax laga weydiiyay amaradan in ay u muuqdaan in cadaadis lagu saarayo siyaasiyiinta musharaxiinta iyo midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya u taagan waa su'aal fiican horta madaxda hore waa dadka ugu haboon oo ka warqaba amniga baahida loo qabo dadka ugu aqoonta badan uguna haboon oo ka warqaba waaye wax khatar ah oo madaxdaasi ay qabto haba yaraateena ma jiraan waxaasan si fiican baa loo daraasay si fiican baa looga fiirsaday madaxda aad sheegtay haday madaxweynayaal yihiin haday mas'uuliyiin kale ay yihiin prime minister soo martay ama wasiir soo martay ee murashaxiin ah dhammaantood waxay ku jiraan xayndaabka ariboorka laga waardiyay ku jiraan sidoo kale Xasan Xundubey Jimcaale wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la hordhigay su'aal ahayd in mas'uuliyadda ay qaadayaan hadii dhibaato ay soo gaarto mas'uuliyiinta hadda mucaaradka ah xilka madaxtinimada u taagan marba hadii ciidamadooda laga kansalay garoonka aadan cadde balse wasiirka may haatoona uguma jawaabin anagu waxaan aaminsanahay madaxdu meesha ay degan tahay markale haddaan ku celiyo khatar amni kama jiraan bahadeer khatar amni ka jirto ma jirto khatartu meel walba ka dhici kartaa guud ahaan laakiin meesha ay madaxdu hadda degan yihiin waa la daraasay waa la og yahay kulligood waxay ku jiraan meel ammaan ah oo ay adag tahay 99% inay ammaan xumo ka dhacdo anagu runtii madaxdu waa fara badan tahay kuwa hadda aad sheegtay iyo kuwa kale oo fara badan oo mudanayaal ah oo taliyaal ciidan haday yihiin madaxda oo baarlamaanka iyo golaha shacabka ku jirta haday yihiin madax garsoorka ku jirta madax kale oo fara badan jirta mana sahlayn in mid inta loogu tago qof walba laga soo doodo ammaanka ariboorkaas arrinta ku saabsan ma sahlanayn mana la sameyn ugu dambeyn wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wax laga weydiiyay mid ka mid ah ciidamada dharka cad ee dawladda u shaqeeya baraha bulshada lagu arkay isagoo bastoolad wata una isticmaalaya dad mudaharaadayay wuxuu sheegay in la yaqaano
askariga dharka cad lana soo qabtay haddana sharciga la horkeenayo. horta ogow ninka hadda aad ka waramaysaan isla markii waa la soo xiray inuu booliisku ka tirsanaa dhar cado watay waa la soo xiray isla maalintii la soo xiray meeshuu ka tirsanaa la ogyahay wuxuuna sugayaa sharciga in lagu qaado sharciga cid ka weyn male qaladkuna waa dhacaya cid kastoo ka dhacaya ninkaas hadda sheegiisa waa laga qaatay waxaa laga qaatay wixii ku habboonaa iyo go'aan ku habboonaa laga qaatay. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu ka hadlay xayiraada dhinaca kale ee dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay garoonka aadan cadde. nuuraddiin xasan ibraahim ayaa warkan inoo eegaya. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa si cad ugu soo horjeestay go'aankii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay in marka laga reebo madaxda dowladda Soomaaliya aysan hub la geli karin garoonka diyaaradaha ee aadan cadde Airport ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay arrintan ayaa waxa uu sheegay in go'aankaas uu yahay mid aan la aqbali karin isla markaana uu la mid yahay go'aamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kala hore ka soo baxay kaas oo ay ku cabiranayso midowga musharaxiinta ama musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isagoona sheegay in loo baahan yahay inay helaan xuquuqda uu leeyahay madaxweyne farmaajo oo kale isla markaana dowladda Soomaaliya ay wado caburin ku aadan musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. waxaan u aragnaa inay tahay arrin wixii maalmahan magaalada ka socday daba socda oo ah in dadka siyaasiyiinta ama murashaxiinta xilka madaxtinimada u taagan lagu beegsanayo. waa la socotaa maalmahaas dowladdu ciidan bay xaafadaheena kor dhigtay xarumaheena dhaqdhaqaaqa magaalada wuu adag yahay kulamada siyaasadeed lama qaban karo tanna waxay qayb ka tahan aaminsanahay in dhaqdhaqaaqeena safarada iyo garoonka la xadido sababtoo ah haddii security-ga ama dadka nabadgelyada noo qaabilsan innaga nala socdaa laga celiyo garoonka diyaaradaha dadkii tartanka naga dhexeeyey murashax madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu kamid yahay iyo dadka kaloo la halmaalana ayaga u fasaxan yihiin taas dee waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinaan la-aan. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in loo baahan yahay in musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inay helaan xuquuqda uu leeyahay madaxweyne farmaajo isagoona sheegay in meesha laga saaro in caburin xilliga lagu sameeyo musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan ku leeyahay annaga ciduu tartanka nagala dhexeeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ma aqoonsan annaga tartamo kamid ah tartamayaasha inuu yahay waxa la leeyahay wixii xuquuqa uu helo annagana helaan u baahanahay. taas waxaa ka sii daran haddayna madaxda dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo guddoomiyaha labada aqal ay isku haleey karin amniga garoonka diyaaradaha oo ciidankooda ay la gelayaan maxay tahay sababta annaga aan isku halaynayn. waxaan leenahay haddii ammaanka garoonka diyaaradaha la isku wada halay karo madaxdu si siman ciidankooda dibadda ha uga tagaan oo ayagoo keligooda ha galaan ha isku haleeyaan ammaanka ciidankeena. hadday ayaga isku halay karin ammaanka ciidanka annagana iskuma halay karno mana jirto sabab la yiraahdo annaga ammaan garoonka diyaaradaha iskuma halay karna ciidankeena waa la gelaynaa idinka keligii isku haleeyana wax la yeeli kara ma. taas waxay macnaheedu tahay annaga ujeedo kale laga leeyahay idinka wixii meeshaas idinka soo gaaraa iyo mas'uuliyadeedii annaga mas'uul kama nihin macnaheedu khatartana idinka u bareera oo khatarta idinka banaanka halay dhigo annagana aan khatarta iska ilaalino. ugu dambeyntii hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa beeniyey war ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya kaasoo ku saabsanaa in askari ka tirsan hay'adda nabad sugidda oo baraha bulshada toddobaadkii hore qabsaday kaas oo rasaas la dhacay dibadbax ka dhigayay Muqdisho kuwaasoo kasoo jeeday madaxweyne farmaajo in wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya askarigaasi ay xirtay. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu sheegay in been abuur ay tahay isagoona sheegay in maalmo ka hor isagoo askarigaasi in la arkaya isagoo taagan villa Soomaaliya isla markaana been abuur ay tahay warar ka soo baxay wasaaradda amniga kaas oo ku aadan in askarigaasi la xiray isla markaana sharciga loo horkeeni doono. ma la xirin annaga og ma xirna sawirkiisaan haynaa shalay maalintii jimcada heer daraad isagoo madaxtooyada hor taagan sawirkiisaan haynaa oo dadka aan la wadaagnay madaxda dowladda ma xirna banaanku jooga hadduu xiran yahay maxkamadiisa gabdhihii oo xabadda ku riday ha loo keeno ha la tuso inuu xiran yahay oo sharciga maray haddii la xiro oo sharciga la geeyo waa ku qanacsanahay laakiin sax maaha warka wasiirka annaga
waana naqaanaa ninka banaankoona jooga. gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur codkiisa waxa uu dambeeyey warkii nuuraddiin xasan ibraahim. kulamo gooni ah ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Garowe ee xarunta u ah maamulka Puntland. magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa waxaa weli ka socda kulamo gaargaar oo ay leeyihiin xubnaha mucaaradka iyo muxaafidka isugu jira ee ku sugan halkaasi, iyaga oo ka hadlay arrimaha muranka uu ka taagan yahay ee doorashooyinka qaranka. xalay waxaa magaalada Garowe ku kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, iyaga oo kulankooda uga hadlay arrimo dhowr ah. wararka kulanka aanu ka helaynay ayaa waxay sheegayaan in ay ka wada hadleen xaaladda dalka uu marayo, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, waxaana si gaar ah diiradda ay u saareen sidii loo wada shaqayn lahaa hanaan ay dalka uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah oo la isku raacsan yahay. dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa kulanka uu la qaatay qaar ka mid ah bulshada reer Galmudug ee degmada Garowe ka dhacay waxyaabo badan kala hadlay. kulanka ayaa waxa uu ahaa mid madaxweyne Qoorqoor uu uga xog waraysi kula yeelanayay bulshadaasi si uu uga dhageysto haddii ay jiraan dhibaatooyin ay qabaan, iyaga oo u gudbiyey warbixin ku saabsan xaaladaha ay ku nool yihiin. xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo wufuud kale oo Garowe ku sugan ayaa iyana halkaasi waxa ay ka wadaan kulamo kala duwan, iyaga oo sidoo kalena bilaabay ololaha musharaxnimada. howlgallo ayaa lagu soo waramayaa in laga sameeyey buuraha Galgala ee gobolka Bari. Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan inoogu eegaya. faahfaahin dheeraad ayaa helaynaa oo ku saabsan howlgallo ciidamada Puntland ay ka sameeyeen inta badan gobolka Bari. ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo gaar ah waxa ay saacadii la soo dhaafay ka fuliyeen dhulka buuraleyda ah oo ku yaala gobolka Bari, kaas oo mararka qaar weeraro ay ka fuliyeen xubno ka tirsan kooxda Daacish oo awood ku leh halka. howlgalka waxa ciidamada si gaar ah ay uga fuliyeen deegaanada Timirshe iyo Turmasale iyo deegaan lagu magacaabo buuraleyda yar ee ka agdhow sida Amaara iyo Lungeela ee buuraha Almiskaad gobolka Bari. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in ujeedada howlgalkooda uu ahaa in ay ka hortagaan weeraro iyo falal ammaan dari oo laga geysan lahaa gudaha magaalada, kana geysan lahaayeen kooxda Daacishta Soomaaliyeed ee ku sugan meel ka mid ah gobolka Bari Puntland. sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen in howlgalka uu noqon doono mid sii socon doona hase yeeshee aysan shaacin waxyaabaha ay ku soo qabteen howlgalka ay fuliyeen oo dhanka dhulka buuraleyda gobolka Bari. ka tirsan kooxda Daacish ayaa mararka qaar waxay weeraro iyo qaraxyo ay ku soo abaabulaan halka magaalooyinkan ay ka geystaan, sida saraakiisha gobolka Bari hore u sheegeen. xilligan ka tirsan kooxda Daacish waxaa la sheegayaa in awood halka ay ku leeyihiin. dowlad goboleedka Puntland waxay sheegtay in ay xoogga saareyso howlgalladaasi si isdaba joog ah in loo sameeyo si halka looga saaro dhaqdhaqaaqa Daacish. halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa raadiyaha wadaag 96.5 megahertz. markana akhbaaraadkii kale ee caalamka. madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka ayaa waxa uu soo dhaweeyay dadaal ay wadaan koox senataro ah kaas oo ay ku doonayaan xaqiijinta guusha Joe Biden uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee dalka Mareykanka. 11 senataro iyo kuwa hadda la soo doortay oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo uu hogaamiyo Ted Cruz ayaa waxa ay doonayaan in 10 maalmood la siiyo baaritaan ay tahay in lagu sameeyo eedo aanan la kala sooc lahayn oo tilmaamaya in uu shubasho ay jirto. warkii aad kala socoteen raadiyaha wadaag saaka waa inageenta.